shirkoodan jaraa'id ee ay ku qabteen degmada Celafweyne galbeedka gobolka Sanaag odayaashan waxgaradkan iyo cuqaashani waxay si adag u cambareeyeen dad ay sheegeen inay hor istaageen mashruuca hay'adda World Vision ay ka waday deegaanka beeraleyda ee biyo dhacay oo ka tirsan degmada Celafweyne gobolka Sanaag waxayna sheegeen in ashxaas gaar oo isugu jirta ganacsato iyo dad kale ay mashruuci deegaankaasi hor taagan yihiin waa sida ay hadalka u dhigeen ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Chief Aqil Cabdi Cawl Cabdulle iyo waxgarad kale waxayna yiraahdeen yaanu nahay deegaanka biyo dhacay hay'adda World Vision oo timi deegaanka biyo dhacay kana qabanaysa wax qabad iyo horumar ku saabsan beeraha biyo dhacay waxaan geynay barasaabka gobolka taliyaha qaybta maamulka degmada Celafweyne mashruuca waxa soo dhagax dhigay oo soo dafuray barasaabka gobolka Sanaag markii uu joogsadayna waxa la yiri maxaa haysta markaan midho waxa la yiri waxa haysta buur madow istaana waa maxay deegaanka annaga iska leh annaga geynay annaga si sharci ah u geynay iyaga si sharci ah wax nooga qabtay waxa laala iyo wax duyaahadaas waxaan wax tarahayn oo waxyeelo ah oo hadii aanu nahay deegaanka biyo dhacay dadka ka tirsan deegaanka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Celafweyne qaas ahaan deegaanka biyo dhacay wax tar waxaan ahayn oo ay noo geysatay ma jiraan cidda ambaaraysay iyo cidda isirtaagtayna waxay hor taagan yihiin horumarkii dalka deegaanka mujtamaca beesha iyo goobta iyo tuulada hay'adda la yiraahdo World Vision waxay timid dalka Soomaaliland bay ka shaqeynaysay madaxweynaha fasax soo siiyay gobolka Sanaag baa loo soo diray degmada Celafweyne bay timi gobollo badan oo Soomaaliland bay ka shaqeynaysay waa lagu soo dhaweeyay maamulka soo dhaweeyay madaxda soo dhaweysay deegaanka soo dhaweeyay cid walba way la kulantay heshiis baa la kala qaatay hawsha waa deegaanadii bay tagtay waxbay ka qabatay wax wanaagsan bay ka qabatay way ka shaqeysay wax badan bay ugu ballan qaaday dadka waxay siisay baa ka qabatay baa jira waxay soo waday baa jira wax fara badan bay ka qabatay beeraha ay ka qabatay beeyooyinka ay ka qabatay waxay deegaanka oo dhan bay ka qabatay dhirta kale ay ka qabatay wax walba waxay tiri waxbaan ku qabanayna waxaan leenahay arrintii halkaa joogtay halkaasay joogtaa in aan la bixin caawimooyinkii horumarka ahaa hay'aduhu bixinayeen in ay diidaan barasaabka iyo waayeel la socda gobolka joojiyeen cadaysteenna inaan laga shaqayn karin meesha la yiraahdo biyo dhacay iyo deegaamadeeda marka madaxweyne waxaan ku sheegaynaa hay'adda adaa wadanka hay'adaha keenay dalka adaa u soo fasaxay adaa yiri ka shaqeeya beeraha ay ka shaqeynayeen dhirta ka shaqeynayeen xoolaha ay ka shaqeynayeen caafimaadka ay ka shaqeynayeen waxbarashada ay ka shaqeynayeen wax kasta oo horumar ah ay ka shaqeynayeen waana waxa soo yaan shakhsiyaad dana gaar ah arrimaha yay hor joogsan biyo dhacay waa meel aan la tagin laba hay'adood baa yimi hay'adda World Vision wax ayb oo ku jiraan ma jiraan waxana weeye dad baan laga cambaaraynaya waxaan walaalahay madaxweyne dadka cambaaraynaya hawsha wataana wax weeye buur madow iyo ninka la yiraahdo barqad asliga maldiga kaasuna cirka soo dhac weeye cirka soo dhaco mar hadaad meeshaadii soo gashay adiga baa og sultan boqorkeena waxaan leeyahay boqorada halka uga booday waad ogeyd waan dadkii ku calaamad saaray aanu ahayn oo aad maanta halka u booday waxa yaga waanu kala noqon iyo dhacay waa meel dadka hadeer ba qabsaday ay leeyihiin beerinaba beerba una ogol kinaalkii ay World loo sameeysay taasay diideen oo laga hor joogsadeen iyagoo xaasid ku dalka iyaga iyo annagaba hadii talaabada dib looga noqon waayo oo dalka iyaga la ku maago inay ka dhacayso talaabo cad aanu ka qaadayno wixii ka dhacanaana la ku lahayn oo mas'uulka ahayn taasaan World Vision oo mashruuca biyo dhacay tiri waxbaanu ka qabanaynaa muddo dheer ku soo laba noqotay ka soo kaxaynay barasaabka iyo qaybta la ogolaaday kootarabaan aan ahayn la yiri waxbaanu ka qabanaynaa hawsha halkaasay maraysay noqodkii dambe waxa la yiri waxa joojiyay ragdana kale oo yaa joojiyay barasaabka joojiya oo yaa laga soo wariyay rag baa yiri dalka anaga waa beeraley inta dawladda Soomaaliland jirtay nin kastaaba ha qabsado namay soo gaarin waana la ka hortaagnaa waxaan naga hortaagnaa mudane madaxweyne waxaan naga hortaagnaa
raggaa maantana kutirikateenta meelaha ka wada baa naga hortaagnaa nooma ay soo dhaadheen ilaa iyo 74 way dhisneed umadana way ku nooshahay oomihii iyo magaalo meel kastaba ay ha ahaatee cunaqabatayn baan saaray jamhuuriyadda Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa iyo wasiiradiisa in arrinka wax laga qabto oo laga eego oo la ka eego oo wixii aanu xaq u yeelan dawladdu loo eegto noo taxqaad haddii taa waxba laga ka qaban waayo waxaa timi hay'ad meesha furtay kinaal bay u samaynaysay horumarin bay u waday ummadii waxa laga dhigay xaasid baa lagu noqday ma tagi kartaa ligi taasuna waxa weeye cunaqabatayntaan sheegay maxamuud cabdi barre bulsha TV Celfweyn